goboleedka Tirol ayaa ka falcelinaysa sicir bararka baasan ee soo food saartay bulshada ku nool gobolka Tirol ayada lagu go'aamiyay shirka la dagaalanka sicir bararka in la kordhiyo kaalmooyinka ay helaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana lacag dhan 2.7 milyan oo euro oo dheeraad ah loo qorsheeyay kabka baahiyaha bulshada gudoomiyaha gobolka Tirol ee dhawaan xilka ka digi doono ee xisbiga OVP Balater ayaa wada sidii wax looga qaban lahaa sicir bararka xilligan saameeyay qaybo kamid ah bulshada ku nool gobolka Tirol hogaamiyaha xisbiga dadka golaha dhaqaalaha iyo musharaxa ugu sareeya gobolka ee doorashooyinka Anton Metal ayaa carabka ku adkeeyay in xirmadan gargaarka dheeriga aysan ka faa'iideysan doonin oo kaliya kuwa bulshada danyarta ah laakiin sidoo kale ay ka faa'iideysan doonaan dabaqada dhexe dadka howlgabka iyo qoysaska sidoo kale kordhinta qarashka tamarta gobolka wuxuu taageerayaa ilaa 100,000 oo qoys oo reer Tirol ah 5 milyan oo euro oo dheeri ayaa loo qorsheynayaa in lagu taageero gobolka wuxuu hadda ku bixinayaa 2.7 milyan oo euro oo dheeraad ah ilaalinta guryaha dadka ay saameysay faqriga dawladda waxay kala fiiro gaar ah siin jirtay dadka danta yar tixraaca waxa lagu sameeyay kabka dugsiga lacagta caruurta ayaa lagu daray kabida daryeelka caruurta iyo isbedelada ayaa la go'aamin doonaa